halka warkaas idinkaga imaanayana waa telefishinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland xarunta dhexe ee TV-gu ku leeyahay magaalada Kismaayo imikana akhbaraadka dibadda heshiis xabad joojina ayaa lagu soo waramayaa in ay kala siixdeen dowladda Suudaanta Koonfureed iyo sidoo kale falaagada hubaysan ee ka dagaalanta wadankaasi xabad joojin ay dhawaantan kala siixdeen dowladda Suudaanta Koonfureed iyo falaagada hubaysan ee wadankaasi ayaa ka dhaqan gashay dalkaasi talaabadan ayaana ah isku dayii ugu dambeeyay ee lagu soo afjarayo dagaalka sokeeye ee halakeeyay wadankaasi 4 sano ee la soo dhaafay heshiiska xabad joojinta ayaa dowladda Suudaanta Koonfureed iyo falaagada ka dagaalanta wadankaasi waxay ku kala siixdeen maalintii Khamiista ahayd wadankaasi Ethiopia heshiiskan ayaa dhigaya in hay'adaha gargaarka loo ogolaado in ay gurmad degdeg ah ay gaarsiiyaan dadka ay waxyeelada ka soo gaartay colaadda ka jirta wadankaasi dhowr heshiis oo horay markaa loo kala siixday ayaana burburay waxaana dagaalka sokeeye ee dalkaasi lagu dilay 10,000 oo qof halka malaayiin kalena ay ku barakaceen dhammaan isku dayadii hore ee lagu doonayay in markaasi lagu gaaro heshiis nabadeed ee dhexmara madaxweyne Salva Kiir iyo ninka sida weyn uga soo horjeeda dawladdiisa ee Riek Machar ayaa guuldareystay in ka badan 1 milyan oo qof oo u dhalatay Suudaanta Koonfureed ayaa u qaxay dalalka dariska iyadoo hay'adaha gargaarkuna ay ka digeen cuniyari baani xabad joojintan ayaa ka dhigan tallaabadii ugu horeysay oo markaa lagu guuleysto waxaana xigi doona wada hadallo kale oo haddii ay guul laga gaaro ugu dambeyn la doonayo in doorashooyin wadankaasi ay ka dhacaan